madaxweyne waxaan leeyahay inta harsanna dhamaystirkeeda aday kugu taala iyo dawladdaada marka annaguna garab baan kugu siinaynaa diyaar baan u nahay wixii dhibanna waa dhamaystiraynaa waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha oo suuro geliyay kulankan maanta ballaaran oo halka la isugu yimi oo nabadda kow ka ahaa gogashana dhigay iyo dawladda xukuumaddiisa iyo raggii kala shaqeeyay oo gacanta ka siiyay oo guddiyada ahaa iyo maamulka gobolka Sanaag degmo iyo gobolba iyo guddidii aan soo dirnay xagga ka soo magacawnay iyo guddidii madaxweynuhu soo magacaabay iyo dhammaan dadweynaha ka qayb qaatay hawsha nabadeynta aad baan ugu mahadnaqayaa waana salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta oo ay tahay maalin taariikh leh oo halka aan isugu nimi nabadgelyada gobolka Sanaag intii ka qayb qaadataba waan ugu mahad celinayaa waana soo dhaweynayaa waana maalin taariikhiya madaxweynena gaar baan uga mahadnaqayaa hawsha isaga oo ahaa garwadeen ka ahaa gogashana bilaabay raggii la qaban qaabiyay oo la qabtayna waa uga mahad celinayaa madaxweyne waxaan leeyahay inta harsanna dhamaystirkeeda aday kugu taala iyo dawladdaada marka annaguna garab baan kugu siinaynaa diyaar baan u nahay wixii dhibanna waa dhamaystiraynaa cid allaale ciddii ka qayb qaadatayna waa uga mahad celinayaa waana u ducaynayaa gobolka Sanaag ama degmada Ceergaabo waxaan ilaahay uga rajaynayaa dadweynaheeda iyo ummadda ku noolba in ilaahay barwaaqo iyo horumar iyo nabadgelyo ilaahay isugu soo celiyo ciddii ka maqan oo hadda inaga dhimanna ilaahay waxaan ka rajaynaynaa iyagoo nabadgelyo in ilaahay noo keeno laguma kala maarmi karo waa meel dad ehela ay ku wada nool yihiin cid gaar ah oo keli ugu noolaan kartaa ma jirto cid gaar ah oo gooni uga maqnaan kartaana ma jirto waxaan ugu baaqaynaa ciddii naga maqana inay si nabada inoogu soo xiroodaan oo inoogu yimaadaan inagoo wada jirana aynu dhinacyada wada qabanno nabadgelyo caama iyo wanaag iyo sharaf iyo sidii ay inoo ahaan jirtay degmada Ceergaabo iyo gobolka Sanaag aynu isugu soo noqonno baan ilaahay ka rajaynayaa cid allaale ciddii ka shaqaysana waa u mahadnaqayaa waana u ducaynayaa waxaan leenahay kolba annagu waajib aanu qaadanay bay ahayd wax aanu cid wax ugu danaynaynay ma ahayn wax ummaddeena iyo dadkeena iyo dalkeena aynu ugu danaynaynay bay ahayd waajibkeygii baanu gudanay wixii noo harsanna diyaar baan u nahay waan dhammaystiraynaa qof kastoo gobolka Sanaag ka mida waxaan u soo jeedinaynaa inuu hawsha inagu aynu hormood u noqono hadday gobolka iyo maamulka iyo odayaasha iyo cuqaasha iyo salaadiinta ay tahay inaga hormood ka noqon karna inagaana goyn karna nabadda Ceergaabo si wada jira inaynu uga wada shaqeyno baan ka codsanayaa dhammaan wixii waxgarada haweenka dhalinyarada waxgaradka salaadiinta maamulka gobolka intaba waxaan ka codsanayaa inaynu hormoodka koowaad inagu ka noqono markaas inagana ciddii aynu u baahannahay waxay nala qaban kartaa aad baan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha iyo dawladdiisaba iyo shacabka reer Ceergaabo ee ka qayb qaatay nabaddan maanta aynu halka isugu nimi oo inoogu xidhantay nabadda fayskeedii koowaad inaynu maanta halka ku soo gebagabaysano wixii noo harsanna waa dhammaystiranaynaa insha Allah waxaan rajaynaynaa guul